in badan xisbiyada Soomaaliland waxa lagu xaman jiray dad bay u xiran yihiin ama niman baa iska yeeshay oo shacbiga Soomaaliland uma sinna maanta xisbiga wadani musharaxa xisbiga wadani oo markii hore ahaa gudoomiyaha xisbigu wuxuu cadiyay in xisbiga wadani uu yahay xisbi la wada leeyahay oo ummadda shacabka Soomaaliland ay wada leeyihiin nin kastaana uu madax ka noqon karo taa waxaan leeyahay waa waxaan hore Soomaaliland uga dhicin madaxweynayaashii soo maray intooda badan nin waliba wuxuu xisbiga wareejiyay markii uu madaxweyne noqday laakiin Cabdiraxmaan wuxuu wareejiyay isagoo aan waxba hayn waxay muujinaysaa sida uu isugu kalsoon yahay uu kalsoonida u qabo ragna waxa laga furfuri leeyahay iyagoo madaxweyne noqday ayay ka baxeen ballanqaadadii ay u sameeyeen dadkii ma garanaysaa xisbiga la lahaa waxay cadaynaysaa arrintaasi inuu Cabdiraxmaan yahay nin abaal leh oo abaal gudi kara abaalna loo geli karo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta jooga xilka haya raggii kursiga saaray wadada uu mariyay shacabka Soomaaliland way arkaan abaallaawe haddii uu jiro Muuse Biixi baa abaallaawe ah halku baasho mariyay baa arkayseen halku jaamac Shabeel mariyay baa arkayseen halkii uu mariyay baad arkayseen maxamuud xaashi halku mariyay baad arkayseen halku geeljiro mariyay baad arkayseen halkii uu professor Cabdi Cali mariyay baad arkayseen waa raggii meesha saaray waxa kale oo arkaysaan madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo Muuse isagoo oo digiran xidhan oo beertiisa jooga soo saaray oo dhaqaale geliyay oo xiniye geliyay oo xoog geliyay oo xukuumad geliyay ayuu maanta wuxuu maalin walba soo dhigayaa waraaqihii uu soo dhigayaa arkiifyada ku jiray ayuu soo dhigayaa isagoo oo ku ceebaynaya madaxweynihii hore iyo xukuumaddiisii gabaygii Salaan Carabi waxba yaanu xoolanaysiin waxba yaanu xeerkay marin xoolanaysiine xaasheen libinka xistiyay xumihii waa yaab waa arrin lala yaabo waxa ay soo dhigeen waa biilal anigu 20 sanadood baan shaqaalaha dawladda Soomaaliland ka mid ahaa oo xafiisyada dawladda Soomaaliland fadhiyay xafiis waliba deyn buu qaataa stationeryga dukaan baanu ka qaadan jiray oo shidaalka dukaan baanu ka qaadan jiray oo spare partiga dukaan baanu ka qaadan jiray mid waliba qaansheegtiisu soo sheegan jiray dabadeetna waxa la siin jiray lacagta uu leeyahay uu sheeganaya la siin jiray waa waxa waxay soo dhigayaan ee ay moodayaan inay cid ku ceebayn karayaan waxaan leeyahay shacabkii uu tilmaamay madaxweyne Siilaayo ee uu yiri doorta Muuse way arkaan dee waxa uu ku sameeyay madaxweynihii ku yiri doorta taa waxba ku fogaan maayo waxaan leeyahay waxa inoo ballana haddii aynu nahay shacabkii madaxweyne Siilaayo u codeeyay ilaa inagu maynaan codayn Muuse askariga dee maynaan aqoon oo maynaan codayn shacabkii u codeeyay Siilaayo markii labaad ilaa isaga yiri u codeeyo maynaan codayneen maanta waxaan leeyahay waad aragtaan dee waxa uu sameeyay waxa inoo ballana in aynu codkeena siino xisbiga wadani musharaxa Cabdiraxmaan Ciro oo muujiyay isagu inuu abaal guday ragiisii inuu xirsi keenay oo gudoomiyaha xisbiga wadani ka dhigay inuu khaliif keenay oo ka dhigay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo isagoo aan madaxweyne noqon ragiisii uu abaal guday way muuqataa taasaa inoo ballana xisbiga kulmiye waxaan leeyahay Muuse Biixi wuxuu ugu talagalay xisbiga kulmiye inuu baabiyo waana ku mahadsiiyay marka hore ragga hor fadhiya ee maanta halkaa ka soo caytamaya waraaqahana arkiifyada ka soo fadhiya marna malabka dhuuqaya ee waaweyn dadku ay moodayeen inuu Muuse siyaasiyiin soo xushay intay bakeeriga yar soo dhigeen malabka dhuuqay ay buuni iyo kamid yihiin iyo kuwii xildhibaanada ahaa iyo kii kan maxaa la yiraahdaa Xasan Saciid bedelay ragga ayaa maanta hor fadhiya xisbiga kulmiye iyo ninkan gudoomiyaha ka ah waraaqaha qoray anigu aan caashin dhaweyn u bixiyay
waxaan leeyahay shacabka kulmiye ku hadhay war kulmiye waa guri cas inaad sii eegataana ceeb bay idinku taha qarankii somalilan kulmiye wuu baabiiyey badbaadadiisuna waxay ku jirtaa maanta xisbiga waddani inaynu taageeraabay badbaadadiisu ku jirtaa dhaqaale urursi buu u dhaqaaqay madaxweynihii aynu doorannay wuxuu u dhaqaaqay inuu dawladdii hore ee isaga meesha keentay ceebeeyo wax allaale intii uu joogay wax uu waddanka ka qabtayna ma jirto iska daa wax uu qabta mashaariicdii ay keentay xukuumaddii hore ayuu badhcaaglaystay waxaa ka mid ah ma soo eegteen waddadii berbera korodhor marka la gaadho meesha la yidhahdo dacarburuq wixii ka shisheeya waddadii hore ee xukuumaddii silaaya samaysay baa labada dhinac laga karay halkii ay ahayd in la qaado waa markii labaad ee waddada la cuno markii horena waddada waa la cunayoo waxay ahayd waddadii baarlamaanka somalilan ansixiyey waxay ahayd in la sameeyo waddo cusub oo barbar gasho waddada ah ayay ahayd mar labaadkiina waa la cunayoo ribeydin baa waxaa laynoogu sameeyey waddadii hore ee xukuumaddii silaaya ay samaysay eeriboodkii cusbaa ee baarlamaanka somalilan uu ansixiyey ee ay ahayd magaalada berbere in loo sameeyo in la isweydiiyaabaa mudan iyadana eeribood labaad ma rabnee kuwa iyagu horaa nagu filan noo kaashgareeya bay dhaheen waxaa muuqata 4 sannadood xukuumaddaa maanta jirta xukuumad kale ma jirtee madaxweyne muuse xukuumad kale ma jirto waddanka xukuumad kale kama jirto waa madaxweyne qura ayaa waddankan xukuumad u ah isagaa waddanka dhaqaalihiisa urursada isagaa waraaqaha yaryar habeenkii tahriibta ee carruurta lagu magacaabayo soo qora isagaa dadkan aan xilkaska ahayn ee xisbiga fadhiya ee xisbigii ay ka tirsanaayeen ee soo saaray caayaya ee ay ka mid yihiin kan caloosha buuran leh meesha la keenay isagaa waa xukuumadda somalilan maanta waa muuse marna carruurtiisa yareer darajaha inoogu taxo marna shirkadaha ha yidhaahdo shir haddaanad ila gelin waa xidhaya marna ma garanaysaa hudheellada hala wareego ha yidhahdo dadkan ka xidhaya waxa weeyaan waa xukuumad nin keliya maanta cid kale oo la eedeeyo oo somalilan joogta oo xukuumadda muuse bixi ka tirsan wallahi inaan garanay hal qofna ha noqotee waxa weeyaan dalku waa madaxweynahaasoo keliya waxaan kale ee la jooga waa magacuyaal waa carruurtaa yareer habeenkii waraaqaha tahriibtaa loogu geynayo guryaha marka waxaan leeyahay halkaa xisbi ma jiro shacabka somalilan waxaan ugu baaqayaa in ay fartooda maanta siiyaan xisbiga waddani yani shacabka somalilan ugu baaqaya sidaad la socotaan waxaa arkayseen iyada oo ay warbaahinta la soo dhigayo inamo yaryaroo dhallinyaro ah oo fartooda qaniinsan ayaa warbaahinta la soo dhiga waxay kaga jawaabeen raggii waaweynaaye mas-uuliinta ayagoo malab dhuuqaya ayay kaga jawaabeen inay soo dhigaan ma jawaab bay u noqonaysaa jawaab u noqon mayso shacabka somalilan oo dhan baa farta qaniinsan ma aha qoladii soo dooratay oo keliya mid soo doortay iyo mid aan soo dooranba shacabka somalilan maanta fartuu qaniinsan yahay oo idinkaa arkaya somalilan haddii dee aan la wada yeelan oo shacabka somalilan aan la ururin mushkilad badan baa ayaa waddanka iman karta marka waxaan leeyahay war nimankaa ay mas-uuliyaddoodii noqotay inay malabka dhuuqaan ayaa maanta kuraasta inoo fadhiya